munaasabad lagu soo dhaweynayay musharax maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa waxa lagu qabtay magaalada Boosaaso iyadoo musharax maalmihii ugu dambeeyay uu booqanayay meelo kala duwan oo uu ka waday ololihiisa dalka hadaba warbixintaasi waxay noo soo diray maxamed darwiish munaasabaduna ahayd mid lagu soo dhaweynayay isla markaasina lagu taageerayay musharaxa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya mudane maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo marti sharaf kale badan ugu horeyntii ayaa qaar kamid ah waxgaradkii cuqaashi iyo haweenkii munaasabada ka soo qayb galay waxay halkaasi ka soo jeediyeen hadallo soo dhaweyna كهوان أهانا أد بأون تاجر سنة محمد عبد الرزاق وأهل دلنيرة ويسوس تاجي المشرحة المدحوينها الصومالية صوبت عن كنت تاجرنا وحوايا أسقوا أهل دلنيرة أقوياء كانوا بلا بيدلك جوديه كان بين ماشي دبد كبلا بيشرين لا كل ما هوان فربدن وكسر ويننا واحد لسعوتان إن قال إسبدل كي الصومالية إففاله إنه قلبت هالكان نفردنه مشرح مدحوينها محمد عبد الرزاق محمود كسر دو قبل كبري كسر دو دتكاجي كسر دو دلكاجي وحنو إن شاء الله أنا وهلا كان أنيجو أفكار أضياش يبلشدا قبل كوهاد لايا وحن كسر دويننا قام فرن gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cabdullaahi Ciro ayaa hambaliyay musharaxa waxa uu musharaxa u soo jeediyay fikrado dhowr ah oo sheegay in dalka ay waxtar u yihiin laba arrimood baan rabaa marka inaan ka hadlo waxaan rabaa inaan kuula taliyo maxamed ilaahay horta ku guuleeyo hamigaaga waana soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inaad marka aad ku guuleysato laba arrimood wax ka qabato number 1 amniga Soomaaliya inaad wax ka qabato oo aad ciidan tayada dhisto oo ciidankaas loo sameeyo koorsooyin dibadda ah oo hadii ama dibadda laga daayo ciidamada wadan gudihiisa wax lagu tababaro laakiin la keeno cid tayeysa ciidanka booliska iyo ciidanka amniga arinta labaad aan rabaa inaan ku sheego haday gabar ba ka hadashay hooyooyinka iyo dhalaanka inaad wax ka qabato aad baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay guuleyso hamigaagana Ilaahay ha ku fududeeyo ugu dambeyntii ayaa musharax maxamed cabdirasaaq waxa uu goobta ka soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlay wax qabadkiisa hadii loo doorto xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka hortago oo aan balan qaado waxa way in aniga iyo dawladdeeda inta ku jirto oo la shaqeysaba aan u dul qaadan doonin wax la yiraahdo musuqmaasuq waxaan rabaa inaan dhiso ciidan qaran ciidamo way jiraan hadda laakiin waa ciidamo kala qaybsan waxaan rabaa inaan sameeyo ciidan midaysan oo ka shaqeeya danta Soomaalida ciidamada mushaarkooda sidaan hore ugu sheegay khudbadeydii waxaan ku bixin doonaa in askari walba iyo qof walba oo dawladda federaalka u shaqeeya aan u furno xisaab bangi oo xisaabtaas lagu shubo mushaarkiisa ama mushaarkeeda waxa igu xiga oo aan rabo inaan gaarno waqtiga soo socda ama 2020 waa in wadankaas ay ka dhacdaa doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah si ay u dhacdo waxay leedahay tallaabooyin loo maro 4 sano waxaan ahaa madaxii hay'adda la yiraahdo National Democratic Institute waxaan ka soo shaqeeyay barnaamijkii tababarada xildhibaanada taakulaynta dawladda madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirada kulligood waa la shaqeeyay waxaan u qoray khubaro la shaqeysa waxaan ka shaqeynaa dastuurkii waxaan aad xogogaal ugu ah waxyaalaha naga dhiman iyo talaabooyinka aan u baahanahay inaan qaadno si aan u gaarno doorasho qof iyo cod sida magaalada Boosaaso qofka asagoo jooga uu codkiisa u dhiiban karo musharax maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa waxa uu yahay musharaxa kaliya oo lalihiisa doorasho ka wada guud ahaan dalka isagoo meelo badan oo dalka booqday waxa uu sheegay in safarkiisa dalka uu sii wadi doono tan iyo inta laga gaarayo xilliga doorashada ay qabsoomayso waa maxamed cabdullaahi aadan darwiish Somali Channel magaalada Boosaaso